xarunta madaxtooyada Puntland ee magaalada Garowe waxaa ka qabsoomay shir degdeg ah oo ay isugu yimaadeen xubnaha golaha wasiirada ee maamulka Puntland. Shirkan waxaa gudoominayay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyadoo ay ka qayb galayeen inta badan xubnaha golaha wasiirada. muhiimadda qabashada shirkan ayaa waxa lagu sheegay inay ahayd mid ay madaxda maamulka Puntland isaga xog wareysanayeen qabsoomida shirka madaxda dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo la filayo in maalinta Sabtida uu ka qabsoomo magaalada Garowe. madaxweyne Dani ayaa xubnaha golaha xukuumadda ee ka qayb galay kulanka u sheegay inay si mug weyn ugu diyaar garoobaan soo dhaweynta shirka iyo wafuudda ka qayb galaysa oo gaari doonta magaalada Garowe. madaxweyne Dani ayaa sheegay in Puntland ahaan ay dhuuxi doonaan nuxurka qodobada ugu muhiimsan ee ka soo bixi doona shirkaasi. waxaana uu sheegay in waxyaabaha looga hadli doono kulanka uu qayb ka yahay arrimaha xoojinta xiriirka wada shaqaynta dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka. waxaana arrintan ay ka dambeysay sida uu sheegay kadib markii ay soo shacbixeen warar sheegaya in aanu xilligan wanaagsaneyn xiriirka ka dhaxeeya dawladda federaalka iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada. waxa uu sheegay saraakiisha ciidamada amniga Puntland inay kaalintooda ka qaataan sidii ay amniga u xaqiijin lahaayeen muddada uu soconayo shirka arrimaha federaalka iyo maamul goboleedyada looga hadlayo ee magaalada Garowe ka qabsoomi doona. sidoo kale shirka degdega qodobada looga hadlay waxaa ka mid ahaa wax ka qabashada dhibaatooyinka abaaro laga soo sheegayo in ay ka jiraan deegaano ka tirsan maamulka Puntland. madaxweyne Saciid Dani ayaa faray hay'adaha samafalka ah iyo kuwa caalamiga ee ka shaqeeya deegaanada Puntland inay gurmad degdeg ah ay gaarsiiyaan goobaha qayladhaanta xoogan laga soo sheegayo ee abaarta dadka iyo dunyada saameynta ay ku yeelatay. qayladhaanta abaarta dadka ka imaanaya